magacaygu waa Ridwaan Maxamed oo degan dalka Germany xaaskayga oo labadii Ramadaan ay u dambeeyay midna uur lahayd midna nuujinaysay hadda markay istiri qaleena ay uur leedahay maxaa ku waajibaya dumarka uur kale iyo dumarka nuujinaya caruurta nuujinaya haddii ay soonku soo galo oo iska afuri karaan shariicada ruqsaysiisay حديث أنس بن مالك الكعبي عند أهل السنن بالنبي صلى الله عليه وسلم كيري إلى هاي صون كوحو كدتشي هوين تأور كله يمد النوجنيس مركا ويسكا أفوري كران هذا خطر دريمانا إن يواجه يكون نقطة دعكر تأفورك أما إلمها بالله بقى لازم بيكون نقطة مركا إن يأفوران وإن يصومان بابا واحد نقطة يسامركا إثم يدم بالنقطة كو طيب ويا أفرين maxaa laga rabaa markay afuraan waxa laga rabaa jumhuur say qabaan culimada badankood say qabaan waxa laga rabaa wixii ka tagay inay dib ka soo qaleeyaan markay jaanis helaan maalmihii ka tagay ee uurka lahayd ama nuujinaysay waa inay dib ka soo qaleyso kolba sidii u fududaata aw qaleyso taawamid hadii ay kari weydo صونكي وابطي سند وين وجينيسا سندنا waa uur way dheeraatay way soomi kari weyd maxaan sameeynaa markaa shariicadan wax uga raadinaynaa oo markaa waxaan leenahay madhab waxa jira saxaabada qaar kamida qabeen oo Abdullah ibn Rahawiyana uu ku tagay oo dhahaya cuntay bixinaysa haweentu markay u afurto ilmaha dartii ama ay u afurto markay uur leedahay ama nuujinayso cuntay bixinaysaabay yey qabaan haddii marka ay kari weydo inay qallayso muddadu ay dheeraato maalmuhu ku bataan oo tabar u weydo marka waxaan leenahay binaan ala madhhabi ba'd as-sahaba wa ba'd al-a'imma marka cuntaha bixiso waase goormo waa markay kari weydo inay qallayso soonkuna ku bato ruqsadaasi sharciga ah baa marka loo heli karaayo loo raadin karaa wallahu a'lam